maayirka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse oo hawlo shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Gabiley oo uu ka yahay maayirka gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley Shacay Maxamed Muuse iyo wafdigan ballaaran oo hogaaminayay markii ay soo gaareen duleedka magaalada Gabiley waxa si diiran ugu soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan duleedka magaalada Gabiley iyadoo lagu soo dhaweeyay fardo caleemo qoyan iyo waliba ciyaaraha hidiyo dhaqanka kadib markii safarkan ay reer Gabiley u bixiyeen safarkii waxqabadkii horumarka oo mashaariic badan oo gobolkan Gabiley laga hirgelin doono ay qurba joogta deegaanka gobolka Gabiley ay ku yaboohday maayirka magaalada Gabiley Shacay Maxamed Muuse markii uu soo gaaray duleedka magaalada Gabiley waxa loo soo galbiyay dhinaca magaalada Gabiley oo ay dadweyne xamaasadaysan oo soo dhaweyntiisa ku dhawaaqaya erayo soo dhaweyna oo ka muuqdo kalgacal taasoo la soo galbiyay ilaa xarunta dowladda hoose degmada Gabiley maayirka magaalada Gabiley oo dadweynaha kala hadlaya fagaaraha khayriyada magaalada Gabiley ayaa aad ugu mahadnaqay sidii diiraneed u soo dhaweeyeen maayirka oo dadweynaha reer Gabiley la hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan dadweynaha ardayga waxay ee degmada Gabiley ee sida quruxda badan ii soo dhaweeyeen inala soo galay faragelin haday tahay dhinaca siyaasadda haday tahay dhinaca militariga iyo dhinac kasta ay tahay ma ogolin faragelin shisheeye dalkeena waa difaacayna loo baqan maayo Soomaaliland halkan ka bilaabinay Gabiley bay ahayd reer Gabiley waxay diyaar u yihiin siday shaqadeedan ugu halgameen ay taliskii afweeray faqashtii daaqada uga tuureen inay maanta cadow kasta Soomaaliland sidoo kale gabagabadii halkaasi waxaa safarkiisa soo dhaweynta ku weheliyay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka kusmaha maayirka magaalada Gabiley Cabdi Yuusuf Koolle iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan oo u kala hadhin soo dhaweynta maayirka Gabiley oo ay ku tilmaameen nin wax qabad badan isla markaasina la kowsaday mashaariic ay qurba joog reer Gabiley ku yabooheen waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley